Ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa howlgal qorsheysan oo xalay ka dhacay magaalada Muqdisho waxa ay ku soo qabteen xubin ka tirsan Al-Shabaab. Sida lagu baahiyay barta Twitter-ka ay ku leedahay NISA, waxaa lagu sheegay in howlgalka lagu soo qabtay khabiir dhanka qaraxyada ah oo la shaqeynayay kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab. Howlgalka ayaa la sheegay inuu si taxadar leh loo sii qorsheeyay isla markaana uu qaatay muddo saacado ah habeennimadii 27 Sebtembar. Ma aha markii ugu horeysay ee hay'adda NISA ay howlgal ay fulisay ku shaaciso barta ay Twitter-ka ku leedahay. Hay'adda NISA ayaa howlgallada gaarka ah ee qarsoodiga ah waxa ay muddooyinkii u dambeeyay ku shaacinaysay barta Twitter-ka iyadoo aan faahfaahin kale oo dheeraad ah laga bixin. Ciidamada nabad